arrinka maanta dhacay oo maalmahan socda ma uunan soo bilaaban hadda kufriyaadka ninkaani uu la yimid waxay soo socdeen dhowr sano mana aha nebigu caayay nebi maxamed keliya ma aha horaybu wuxuu ugu soo tuntay oo wax ka qabtan la waayay nebiyullaahi muusa muxaadara uu jeedinayo duubay uu leeyahay waa cilmu daahir iyo cilmu baatin anugu waxaan aaminsan oo aqaanaa cilmu baatinka ayaana xeel dheer asagaana macnaha qofka fahmay uu dhuuxay waxa weeye uusan daahir u baahnay siduu u soo waday buu wuxuu yidhi tusaalahan idin siinayaa waxa weeye khadir calayhi salaam wuxuu aaminsanaa oo ku socda cilmu baatin nebiyullaahi muusana wuxuu aaminsanaa cilmu daahir labadoodiina way doodeen markaasaa nebi muuse ceeboobay bihaada lafdi ayuu odhanaya nebi muuse ayaa ceeboobay markaasuu ku soo celiyo wuxuu leeyahay ilaa cilmu daahir ow qayma ma lihid nebi muuse ku ceeboobay ilaa ayuu leeyahay dhowr sano ka hor ayuu odhanaya kama soo bilaabin kufrigaas sabbiga maanta nebiga uu geysanayo iyo kanaa rasuul ah wuxuu caan ku yahay meesha uu joogo oo goobtaah uu degan yahay wuxuu ku magacaabay markuu dhisayay bayturasuul beytkii rasuulkaan dhisaya markaasaa dad cawaam ah oo nebi maxamedba aan beyt inuu leeyahay usan lahaynba adduunka aan waxba ogayn ayaa yidhi bayturasuul aan ka qayb qaadanno markaasaa waxaa loogu deeqay dhagaxa dejintiisa lacagta la bixinahayo shaqaalaha shaqaynaya fuundiyaalka ayaa loogu deeqay xarun ayuu dhistay markaasuu wuxuu ku magacaabay bayturasuul nasre iyo durbaan buu ka bilaabay makarafoonna waaweyn buu ku xirtay xaafadihii dariska ahaa dadkii deganaa waa ka guureen habeenkaas oo dhan buu ku dhawaaqaya jaadka u yimaada oo nairobi uga yimaada waa firi qaybta jaadka u soo baxda asaga loo soo qaado dadka yaqaanaa waxay noo sheegeen in loogu soo qoro siyaaradii sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare ayaa loogu soo qora markaasaa diyaaradda marka laga soo dejiyo jawaanadiisa gooni baa loo dhiga asagaa loo geeya salaada waaguu diidi jiray ma dhoweyn ma tukado macruuf weeye kuwii la joogay oo ayagu iskood u tukanahayay oo markii dambe iska daayay baan weydiinay markaasay yidhahda shiikheennaa iska daayay maxaa yeele wuxuu yidhi aniga nebiga ii tukada idinkana anaa idin tukada iska daaya yaqiintii baan gaarnay ma tukado waa salaad la'aan waa fuxshi iyo daroogo waa khinaagaas iyo muusigaa la tumaayo وصب الأنبياء الله عينيه وأركتين آياتها القرآن كما كوهيسها انتو صوك حيث كوحدا أو فريقا إنو كوهيسها يا آياته القرآن ومركو مرها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إن دونكنا يصور كايسا واركت تلاعب كهير كاس جاري إيا كفر كهير كاس جاري زندقات دبا لتشوغا آمنسا إنو يهولي صوت ظاهر الشيخ عبد الود تاسو آمنسا markii sawiradiisa ay wadeen waxay ahayd bil ka hor laba bilood ka hor ayuu sawirka meesha keenay ilaa aan aragnay dad aaminsan inuu yahay sawirkan rasuulka ilaahay oo asaga intuusan hadlin ka hor ayaan arkaynay dad oranaya sawirkan aan wadana waa sawirkii cabdiweli uu notusay waana nabiyullaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam adigu adduunyada iska joogtay inay maxad maal arag anu darajo ayaan ku dheerahay kaala rasuulkii ku soo tusay muxamed aha sawirkiisa kaala soo daaway oranay markaan uu hadlahayo banaanka isu soo dhigahayo waa marka nin wadaadii intuu ka hadlay uu yiri waxaasi waa fuxshi iyo dambi ayuu seef intuu garabka soo saartay oo tuuta soo gashaday ayuu taxaddi arrinkiisa uu ku taxadinayo oo uu difaacanayo ayuu wuxuu yiri maxay ka yaqaanaan nuur lawxul mahfuud kan daalacday waxa ugu qoran ninka iradinahaya alla ka jeestay yus bara ugu qoran buu leeyahay bal ka war ninkii ka hadlayba wuxuu leeyahay asaga dhanba khaatubadiisaan ka warramaya lawxul mahfuudka waxa ugu qoran inuu yahay inuu sakhayr balahayn baa ugu qoran intaasu sooma haddaw midkaani sidaas yahay midka uu rasuulka ku sheegaya man huwa ma mid asaga dhaama dadkii yaqaanay oo shakhsiyan u yaqaanay kuwii la joogi jiray markii aan waraysanay ninka isaga bilow la yiraahdo oo rasuulka uu ku sheegayo magaciisa maxamed baa la yiraahdaa in sheekh xuseen baa la yiraahdaa wuxuu ka yimid dhinaca Itoobiya wuxuu joogaa mataqaana street buu joogaa Nairobi ninka isaga ayaa daroogadan iyo waxa iyo sixirka sheekhu ugu ahaa waa nin sigaarka caba waa nin jaadka cuna waa nin baashan shishada dhuuqa ninka raba agtiisa maqaam inuu ka gaaro oo uu raba inuu sharaf iyo qiimo agtiisa ka yeeshana 6 bilood waxa shardi ah
inuu bahashaa shiishada ah oo dhuuqahayo dhuxusha lagu shidahayo inuu shido ayaa shardi ah 6 bilood ayaa dabka u shiishada u shidaysa markaas ka bacdi baa agtiisa waxa ka gaaraysa maqaam iyo darajo ka gaaraysa wuxuu soo dhiibaa usbuuc kaste dadka yaqaanaasay noo sheegeen caagad buu soo dhiibaa ay ku jirta tahliil wuxuu ku magacaabay oo sixir ah wuxuu u soo dhiibaa ninka gaalkacyo jooga markii loo geeyana ninkaasi wuxuu ku shubaa barkad xarunta ku dhex taal ku shubaa dadka ayuu yiraahdaa tahliishu usbuuciga ahayd way usbuuca la cabi jiray kakabada oo sixirka ahayd jaadka ayaa la keenaa marka jaadka la keeno biyaha tahliishaha lagu fardhiyaa intaan la curin ka hor waxay ku sheekeeyaan oo yiraahdaan jaadka caleentiisu geedaha kale waxay uga duwan tahay jaadka caleentiisu waxay ku baxday ismullaahi al-a'zam kay ku baxday yiraahdaan dadkii joogaa noo sheegay ninka isaga ah oo asaguna soo duubay hadalka uu leeyahay nabi ma sheegan dajalkan iyo kufrigaana aabba u ahaa dad dhowr aba hadda la jooga oo qaar qaraabadiisa yihiin qaarna dad kale ay yihiin sida naloo sheegay dadka iyaga aba u aaminsan ilaa yawmina hada inuu yahay nabi soo daahiray asaga laftiisu nin ayaa jiray nabi inuu yahay uu aaminsana oo uu daaci u diray Tanzania oo Tanzania tago laga soo ceyriyay baa jiray ninkaasi haweenku dumarka oo la jooga oo ma kala socna tana ajnabi ka amale markii la yiraahdo maxaa u salaamaysan wuxuu yiraahdaa ummahatul mu'miniin weeye aniga waa ii banaanta fayl ayaa loogu jiraa tahliishiisa iyo dawadiisa qofka ma taqaana siinaya lacagna wuxuu ku siinaya inuu karaamiyo maqaam ka gaaro ayuu ku siinaya nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayay dadka noocaas oo kafarada ah maanta ay keeneen inay sheegtaan oo ay nuqsaamiyaan oo mandarka isaga aad aragteen inay ku shabahaan nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam qofka muslimka ah hadii la yiraahdo ahalkaaga la dhacaya ama cirdigaaga la dulaysanaya ama maalkaagi baa la boobaya wuxuu isku dayayaa wasiilo kaste iyo wada kaste oo maalkiisa ku difaacan lahaa caruurtiisa iyo xaaskiisana ku badbaadin lahaa naftiisa uu ku badbaadsan lahaa buu isku dayayaa laakiin nabigi kaaga xaq badnaa naftaada iyo maalkaaga iyo ahalkaaga hadaadan lisaankaagu kalimadna uusan karayn ka hadaadan seef qaadanayn u dagaalamahay hadaadan lisaankaaga ku difaacahay hadaadan maal ku bixinahay nabiga inaa ku difaacdi bal ka war maxaa isleedahay ilaahay agtiisa oo qiimaha ka leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala in yasha yudhibkum wa yati bi akharin haduu doono ilaahay kulliga waa nakaxaynaya wana halaagay markaas ilaahay kuwa caabuda oo nabi maxamed cirdigiisa wax walba ka hormariya oo diintiisa u istaaga ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala keen cawaamta la joogta oo nabi inuu yahay aamintay qaar kamida oo masaajidka jooga ayaa la hadlay dad kamida warma waxaad aaminsantii waxa soo baxay oo abdi wali idin sheegay miyaad u aaminsantii nabi inuu yahay markaas ilaa nabiyullaahi muhammad way soo noogu sheegay hadau yiraahdo waan ka laabanayaa xabiibkii aan jeclaabaan ka waday oo kama wadin ma taqaana nabiyullaahi muhammad waxa diidahaya waxa duuban oo ka sajilan baa diidahay oo aan sinaba u aqbali karin ولذلك بي أهل العلم وحي سوغوريان قفك هذه لغاها لفظ صريحة أو عاد هذه لغاها وح الله ليه وح تأويل لغا أقبل مايو كاس صريحة لغو قاضي لغا أقبل مايو وح تأويل ولا ليال بارك الله فيكم قد يبقى خطرتها قف ولبوحي وكديه كرأي وح الله وحو كقبان كلاهو استاق دادك مسؤوليين تا oo manaasib iyo awood haysta waajib waxa ku ah ninka isaga inay soo qabtaan cadaaladana keenaan ayna mariyaan sharciga islaamka wuxuu ka qaba ay mariyaan waajib ay ku tahay inay hadlaan oo dhawaaqaan meel walba ka hadlaan waajib ay ku tahay gaar ahaan kuwa uu la joogo oo deegaankooda uu ku nool yahay culummo iyo caamo madax iyo maamul kaste waajib waxa ku ah ninka inay soo qabtaan وإلهي أقبقان هذا إلهي مضر إيا خير كالربان هذيك لا خطر وين نهاية إنه قطع لك يا خطر وين نسأل الله السلام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين